السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idin wadaa war degdeg ah Fahad Yaasiin oo hadlay aniga iyo madaxweynaha Farmaajo waan ognahay in Ra'iisul Wasaare Rooble laga weeciyay wadadii Toosneyd ee aan ku xulanay ahaydna ilkasnimo daacadnimo geesinimo qabyaalad nacayb dagaalanka argagixisada dagaalanka danaha shisheeye iyo shisheeye la jirka number 3 shay ayaa cadeyn u ah in laga weeciyay xilka qaadista oo aniga igu sameeyay waxay ahayd mid sharci darro ah waana waxa ay soo dheheen dowladaha shisheeye number 2 magacaawista Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga dowladda Soomaaliya sidoo kale waxay ahayd mid sharci darro ah number 3 fashalinta wada hadaladii lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka isaga iyo madaxweynaha Farmaajo number 3 saddexdaa shay waxay cadeyn u yihiin in Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Rooble laga weeciyay wadadii Toosneyd ee aan ku xulanay inaga iyo madaxweynaha Farmaajo waxaana shaki igaga jirin in gadaal laga riixay shisheeyaha iyo mucaaradka kuwaasoo aan rabin dowladnimada Soomaaliya iyo xasiloonida maanta aan haysano waxaana ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa aniga iyo madaxweynaha Farmaajo wali aan diyaar u nahay in wax kasta lagu dhameeyo wada hadal kamana quusanayno Ra'iisul Wasaaraha in aan ku soo toosino wadadii aan ku xulanay magacaabistaasi ee hadda ummadda Soomaaliyeed marqaati ka tahay in laga weeciyay fadlan sheer gare